asalaamu calaykum. waa muuqaaladii aan ku eegi jirnay dadyogii adduunka soo maray kuwoodii ugu tunka weynaa hadalladay ka tageen ama soodhahyadii caanka noqday. odhaahda koowaad waxaynu ka soo qaban doonaa aristotle oo badiba dhammaantiin aad garanaysaan, shakhsi aad u ruxruxay maskaxda oo ku soo kordhiyey cilmiga fiisigiska aragtiyo aad u kala gedisan, laguna xasuusto gravitational forceka. waxa uu ina leeyahay markan, if you wish haddaad rabto to understand inaad fahanto a person qof inaad fahanto haddaad rabto keliya observe waxaad ku samaysaa indhaindhaynin ku samee what they admire, waxa ay la dhacsan yihiin qofkaasu shayga uu ka helo ee uu la dhacsan yahay. indhaindhaynin ku samee guud waxaad ogaanaysaa shakhsiyadda qofka. filosofer hore iyo mufakar weyn rumi waxa uu ina leeyahay, raise your words, sare u qaad erayadaada, not voice maaha codka, it is the rain waa roobka, that grows ka koriya flowers ubaxyada, not tender maaha onkodka. african proverb maamaha afrikaana waxayna leedahay, a man who hangs around ninka ku dul wareega a beautiful girl gabadh qurux badan without saying isagoo aan ku odhan a word hal erayna aan ku odhanin, and this up wuxuu ku dambeeyaa ninkaasi fetching water inuu soo qaado biyaha for the guest martida at her wedding, martida imanaysa arooskeeda keliya inuu biyaha u keeno ayuu ku dambeeya. filosofer hore u dhashay waddanka ruushka oo la odhan jiray dostoyevsky waxa uu ina leeyahay, the best way sida ugu wanaagsan to keep a prisoner from escaping, sida ugu wanaagsan ee maxbuus aad uga ilaalin karto inuu baxsado from escaping uga ilaalin karto baxsigaay is waxa weeye to ensure inaad hubiso he never knows inaanu weligiiba ogaanin he is in a prison inuu ku jiro xabsi. Nietzsche laga yaabaa magaciisa inuu kaa yaabiyo, laakiin waxa uu ahaa filosofer hore u dhashay waddanka jarmalka, waxaana laga hayaa odhaahdan. waxa uu ina leeyahay, sometimes people mararka qaarkood dadku don't want to hear ma doonayaan inay maqlaan truth runta, because maxaa yeelay they don't want their illusions ma doonayaan khiyaaligooda destroyed in la burburiyo, nolosha khiyaaliga ay ku nool yihiin in laga burburiyo ma doonayaan dadku. haddana waxa uu ina leeyahay, when tree falls marka uu geed dhacayo, everyone qof kastaa hears uu maqlaa the sound codka, but laakiin when a tree grows laakiin marka uu geed baxayo ama uu korayo, no one hear it cidina ma maqasho. daawade waa tii odhahdii kalena ahayd, keep silency aamusnaantun ku dadaal, and let the success una ogolow guusha makes noisy inay dhawaaq iyadu samayso. oo ujeeddada ama dulucda oo dhan haddii laysu geeya ay tahay inuu wax kastoo aad doonayso inaad gaadho, horumar kastoo aad ku taamayso oo aad rabto inaad qabato, inaad cidnaba la wadaagin, keliyaata dibnahaagu ay ahaadaan kuwa xidhan. seneca ayaa loo tiiriyaa odhaahdan, inkastoo asalkeedii hore muran badan ka taagan yahay. waxa uu ina leeyahay, great my people dadka garaadka u saaxiibkaa ee maskaxdoodu aadka u sarraysay discuss waxay ka doodaan oo ka hadlaan ideas aidiyooyin bay ka hadlaan, fikrado ayay ka hadlaan, halka average people dadka iska caadiga ah ee normalka ahina discuss ay ka doodaan ee ka sheekeeyaan iyaguna events dhacdooyinkaas ha noqdaan kuwa tegey iyo kuwa soo socdaba. and weak people dadka daciifka ahi discuss waxay ka doodaan other people dadka kale, taasi oo dulucda ku jirta ay tahay, daawade adigu mawduucaad ka hadasho ayaa tahay. haddii aad tahay weak people dadka daciifka
ee dadka kale ka sheekeeya xumaanahooda adiguna sidoo kale waxaad tahay daciif. inaha waxaynu ku soo koobaynaa odhahyihii ay ka tageen dadyagii ugu tunka weynaa ee adduunka soo maraa. wassalaamu calaykum. youtube-kana daawanaysaay waa caalami official. waa anigoo cabbaas jaamac cali ah. aad baan idin salaamayaa. nabaday.